oo ileen aniga wax walba iyo aqaano ama aniga wax walba og qof dhigi kara ma ihi sideed u aragtaan qofka ubadkiisa in uu afka ka shumiyo sida hadda ashwaariya eedaynta dusha lagu tuurayo xataa dadaa waxaa u soo qoreenaa layiri hooyo maa tahay mise lesbiana tahay buris ay tahay dhaqanka ay macnaha ay ka tegayso gabadhan ayadaa dhashay waa sax gabadhaadaa layiri waxaad ka shumin kartaa daanka madaxaad ka shumin kartaa yaa balse afka mar walba sideed ugu dhunkanaysaa waa cajiib afka sideed ugu dhunkanaysaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صوماليين ميلو البقى جوتان وسلامتهين فنسكيغا وحا إذن لايها باش برواقو نردير عبادة السلطة بمامتينا ألا بوحاد إيقا براتين جنالك معلي جيكي شاكير أوفيشال إن أن إذن كسيو بوليوود كا وراركا وصوب بإذن الصوبة واتاي ما أنت محا إذن هايا هورتا إن وحاجرو wax sax ah iyo wax warxun tashiil ah iyo waliba waxyaabo qaar markii sawiradooda aad aragto oo alayleeyahay aad isleedahay waxa la sheegayo waa sax wax walba sawirka lagama soo qaato sababtoo ah indhaha mararka qaar waxay arkayaan run ma noqdaan waatahay ereygaas waxaan ula gol leeyahay ashwaariya ray ashwaariya berihan tooshka ashidan lagu raadinaya waa tahay ashwaariya iyo gabadheeda ayagoo hal dhinac ah oo familka Bachchan ka go'een misna meel walbo ashwaariya ay gabadheeda u wadato ayaa waxaa la sheegay in Dubai uu ka jiray bandhigyo fara badan misna ashwaariya iyo gabadheeda lagu casuumay ay wada aadeen ashwaariyana lagu arkayay saare qurux badan oo cad iyo madow isugu jira oo misna qaali ah ay xirneed gabadheedana isla warshadii saariga soo saartay oo qaaliga ayadana ayadoo nooc kala ah ay soo gashatay bandhig faneedkii ay imaadeen misna ay ku hami weyneed ashwaariya misna lagu dhawaaqayba atrisha weyn in ay tahay lagu xishmeeyay meesha loogu yeeray waa tahay waxaasi waa iska caadi waa ay dhacaan balse waxa lagu yiri ashwaariya waxay ahayd hooyo xishoonaysa hooyo waxyaabo qaar aan ku dhaqmaynin markii familka Bachchan ay isku dartay oo ayadoo dhan macnaha dabeecadeeda dhan ay noqdeen sida familka reer Bachchan oo kale waa tahay maxaa lagu eedeeyay marka su'aashaas waxaan rabaa in aan idin weydiiyo idinka ay iga soo jawaabtaan cunuga adiga aad dhashay ama gabadhaada ama wiilkaaga waad shumin kartaa waad dhunkan kartaa Soomahan okay marka hooyo siiba hadday tahay bal fiiri meesha waxyaabaha laga raadinayo wax jira inay yihiin in kale kulay su'aashaas idinka idin deynaya waxaa la yiri 2 sano ka hor ashwaariya ray dhalashada gabadheeda markii ay u sameynaysay ay umaad celinaysay waxay ka dhunkatay bushimaha ayay ka dhunkatay gabadheeda waa tahay waa laga soo gudbay bandhig faneedkiina markii oo ashwaariya ay la guddoonsiiyay in ay tahay atrisha weyn oo meesha lagu martiqaaday gabadheedana macnaha ay duubaysay kadib waxaa la arkay misna ayadoo gabadheeda afka ka shuminayso sabirdii la soo qaaday meesha ayaa la soo saaray waxaana lagu eedeeyay ashwaariya in ay dhaqan buris ay tahay dhaqanka ay macnaha ay ka tegayso gabadhan ayadaa dhashay waa sax gabadhaadaa layiri waxaad ka shumin kartaa daanka madaxaad ka shumin kartaa yaa balse afka mar walba sideed ugu dhunkanaysaa waa cajiib afka sideed ugu dhunkanaysaa ma waxaad qaadatayaa layiri
familka bajan waxyaabaha ay ciyaalkooda ay ku wadaan. Okay, taas daliil ahaana marka loogu soo qaatay. Sidee reer bajan ugu dayan kartaa ha la yiri. Hooyaa tahay gabadhaada farxadeeda wax walbood samayn kartaa, daankaa ka shumi kartaa, madaxaad ka shumi kartaa, meel walbaad ka shumi kartaa kale, laakiin afka lasu saaraya taas waxaanu aragnaa la yiri Ashwariya in aysan hooyo wanaagsan ahayn. Eedeentaasaa dusha loogu soo tuuray oo ah dhaqanka reer bajan ayaad qaadatay ha la yiri. Okay, dhaqanka reer bajan marka haddii aan u soo jeesano warkaas waxaa la soo qaatay sanooyin ka horey Jaya Bachchan ayadoo bandhig faneedka joogta misna wiilkeeda Abhishek Bachchan guddoonsiinaya koobka ayada ay qaadatay. Misna waxaa la arkay koobka markii la guddoonsiinayo ayadoo wiilkeeda afka ka shuminayso. waxaa la arkay oo sawirkii lagu qabtay Jaya Bachchan oo Abhishek Bachchan afka ka shuminayso. Marka midaasa loola soo qaatay Ashwariya loo soo xigsaday oo la yiri ma dhaqan xumada reer Bachchan ayaad adigana qaadatay. Mar waa lagu dul qaatay markii ay eed gabadhaada dhalashada gabadhaada afka ayaad ka shumisay. ciyaalka waxaa loo baahan yahay la yiri xataa faniskeeda u soo qoriyaa la yiri ciyaalka waxaa loo baahan yahay ama daanka ama madaxa horumar markii gaara ama waxooda dhan intaas in ayaga loo sameeyo. laakiin afka hadday tahay dhaqan haleys ayaa meesha iibidaa la yiri oo weliba adiga aad ka soo guursatay yaa la yiri reer Bachchan oo loo soo qaatay Jaya Bachchan oo wiilkeeda afka ka shuminayso. waata marka waxaa la yiri Ashwariya dhaqan xumada ay bilowday dhankaas ayay ka keentay misra dhowr jeer ayaa loo sheegay loo soo qoriyo la yiri ubadkaaga kuguma haysanin in aad jeclaato, laakiin jaceelka noocaas oo mar walba aad afka ka shuminayso why oo haddana aysan ahayn xataa mid caadi ah oo ah mid social media gudihiisa haddii lagu jiro oo xoogaa yar xishoodka uu wanaagsan yahay. marka asxaabay go'aan degdeg ma gaari karo siiba aniga macalin GK ahaan ubadkaaga saas ma ula dhaqmi kartaa, ma wanaagsan tahay mise ma wanaagsana. taas waxaan rabi lahaa in aad iga jaahil bixisaan oo ileen aniga wax walba aqaano ama aniga wax walba og qof dhihi kara ma ihi. sideed u aragtaan qofka ubadkiisa in uu afka ka shumiyo sida hadda Ashwariya eedeynta dusha lagu tuurayo? xataa dadaa waxaa u soo qoreenaa la yiri hooyo ma tahay mise lesbian tahay. sidee marka adiga ubadkaaga mar walbaba aad farxad dareenta ama wax ayada horumar ay samaysay aad afka ugu shuminaysa ama meel adiga xafladeeda ayada dhalashadeeda sidaas ugu samaynaysaa? ma duqdaas ayaad ka soo guursatay oo adiga dhaqankeeda kula socotaa? marka Ashwariya run ahaantii wax jawaab ah weli kama aysan bixin walow faniskeeda markii hadallo qaldan ay dadka kale ay dhahaan jawaabta intaan Ashwariya la gaarin oo ayaga ay bixi jireen oo difaaci jireen ayaa lagu yiri 80% ayaga ayaa ku kacsan oo le dhaqan xumada adiga gabadhaada aad kula dhaqmayso maxay tahay. marka faniska waa sax marna way ku difaacayaan marna qaladkaaga ay ku tusinayaan. marka anaga horta isku mowqif manihi, isku diin manihi, dadkaas isku dhaqan manihi. marka taasi horta dhanka islaamnimada ma ku wanaagsan tahay. ayaga kulley xirig xirayo oo ama macnaa sharci oo tan dhaqankeeda saas waaye iyo wax dhahay ma lahan, waxay doonaan ay samaynayaan. laakiin anaga agtayna ma fiicna. waa sax ubadkaaga xataa afka markaa ka shuminaysa adiga ma wanaagsan. labada daan ka shumi, madaxa ka shumi, laakiin afka u saar neeftaada. inkastoo waalid aad tahay
waxyaabo badan adiga kugu jira ubax yar soo baxayo ubaxan waxa loo baahan in la koolkooliyo la ilaaliyo marka taasi ashwaariya waxyaabo badan ku soo furmay حتى وحالير محالا محاكو قول عي حزبيا نياتا ونكتا هذا الساس محاكو لا دخميسا وخص وقلط ووح أيضا الرب الجبوري إن وحياباس إسكديسو ولو ما مدي وين دويل كذا أساس وشمس دائما كان إسكشميا مركا وحالير دقان حماذا أي وذان غير بتشم أيضا لو ما صعدوا عديدا أكفيرسي حالو صعدا غير بتشم marka warkaasi dad badan ayaa waxay soo qoreen xataa waxyaabo badan waxa jiro anaga aan macnaha ashwaariya ka dabooli jirnay balse hadda hadii ay jawaab degdeg soo bixi weysay waxyaabo badan banaanka imaanayo waxyaabo badan banaanka imaanayo xataa marka waxay ku soo lifaaqeen faraantiga ugu jiray oo ahaa midka bisheek ida marqaatigu ahaa in la isqabo farteeda kuma jira liiri way iska bixisay furinkii iyo wixii markii la gaaray abisheegna asaga markii farihiisa la fiiriyaa liiri faraantigu uu ku jira marka ayada ayaa weli waxay taagan tahay furin degdeg oo faraantigii xataa waa sax daalad markii faraantiga aad bixisay bas way rajadan ku taalo marka waxa wixii soo kordhana aniga ayaa idin sheegay ashwaariya eedeyntaas dusha lagu tuuray walow faraantiga xataa ay bixisay waxa la yiri naagta farahay ka baxday waa tahay assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh